waxa ugu horeeyay book aan qoro journal aan motherkino markii aan Minnesota u soo guuray California ka yimiday waxyaalo badan Minnesota aan kala kulmay magaalada ku cusbaa iyaal yarar watay laba yarar wiil iyo gabadh watay ayaan magaalada Minneapolis sababtan orto u doortay waxay ahayd meel aan ilmo ku korsado ay Soomaali ka dhaxarkaan marka California ka soo guuray Minnesota yimiday waxaan u doortay diin inaan ilmahayga ku baro af Soomaali ay ku bartaan labiskooga iyo dhaqankooga ay ku jiraan aniguna Soomaalida aan madarkino ilmahayga ku dhex korsado saasaan Minneapolis yimiday Minneapolis hadda waa weynaatay hadda 19 years ago almost 20 dadku iska cusbaayeen waxyaalaha aan ka arkayna oon markaa la darsayna waxyaalaha aan jeclaystay ma ahayn qaarkood marka waxaan jeclaystay inaan wax barto midadaama magaalada aan ku cusubahay waxaan jeclaystay inaan community-ga dhex galo dadka aan dhex galo organizationada dhex galo dadka active-ka aan wax ka barto markaas waxa igu noqotay waxyaalo aan madarkino marka aan ka dhex waayay community-ga dhexdiisa ayaan community-ga anoo ku dhex jira ayaan hadana ka yara dhex baxay oon ajnabi raadsaday sidii madarkino aan programyo u qaato programyada aniga aad i caawiyayna waxa kamid ahaa program aan insha Allah waxa rajeenayaa inaan mar una ii suurtoodo inaan qabto waxa la dhahay programkaasi family self sufficiency ayaa la dhahay 2 sanadood ayaan programka qaadanayay feedkii ayaan dhigan jiray labada carruurna waan ka haysan jiray oo waxay lahaayeen daycare nacashina siin jireen waxaan bartay waxyaalo badan ila nolosha Mareykanka sida loogu noolaado ayaan bartay marka waxay igu dhiirigeliyeen Minnesota haddii aad rabtid shaqooyinka aad ka shaqayn jirtay California degree baad u baahan tahay California anigoon degree haysanin ayaan organization la dhaho Lutheran Social Services waxaan jeedaa Catholic Charities organization la dhaho oo qaxoontiga dadka keena ayaan shaqo ka bilaabay waxa igu doorteen Englishkayga jajabkaaba igu doorteen iyo active-nimadeyda iyo dhalinyaro aan ahaa 2000kii bay ahayd Soomaali Bantuba barigaana imanaysay markaasaan gaarigan ka haystaa magaalada yar ee California San Diego ama uba sareeyay iska watay dadka odaygii jidka taagan waan qaadi jiray maamadii jidka taagan waan qaadi jiray gabdhaha marka community activist markaas igu bilaamatay inaan bilaabo taasna waxa ii suurtageliyay markii aan ilmahaygii California iga dhimatay ilmahaygii labaad iga dhintay aan rafaadka badan ku dhaxarkay oo dhakhtarku igu dhahay ilmo dambe ha isku dhalin ilmihii labaad iga dhimanay marka ay tahay ayaa waxaan jeclaystay inaan waxna barto dadkana la shaqeeyo marka California aan ka soo guuray in yaro English aan aqaani programka markaan galayna albaaba ii furmay jeegigu horeeyay markaasaan bartay si loo qoro credit card wuxuu yahay markaasaan bartay markaan credit card bartayna iyo sidii mataqaanaa loo fiiriyana waxyaalahan la kulmay abuugayga memoirka ku jira marka insha Allah buugaag badan baan qorayaa haddii Ilaahay ira markii aan Minnesota yimiday programkii aan dhameeyay college bay igu dhiirigeliyeen sababtoo waxay dhaheen Minnesota degree baa wax shaqooyinka lagu helaa just aqoon baan English yar baan ku hadlayaa looguma qaato okay then schoolkii baan aaday associate degree baan qaatay 2 sano college saan ku qaatayna buugay ku jirtaa ka akhrisan kartiin fair for a lag I'm not taking no for an answer and I waxay ugu dhaheen waliga high school lama soo dhigan GED lama haysatid sida schoolku aadi kartaa waxaan dhahay wax ku qaariga liitay college ka dhigtaa qaariga liigta English ka jabsanaya ayaa English ka dhigtaan dhahay ana
meel kaste qofku ka sarreysaan u aadayay finally waxay dhaheen qof tambal tijaabiya waan galay imtixaankii bay iga qaadeen waa ku baasay sidii baan college ku galay laakiin waxaan ku dhacay math because weligay math ma soo dhigan marka adiga math ka xidhan banaanka soo dhigo soo noqo ka bacdi saasaan college-kii associate ku dhameeyay bachelorkiina waan dhameeyay insha Allah ka bacdina master saa rabaa inaan insha Allah haddii ilaahay idhaa bilaabo sanadkan aan ku jirno marka waxaan ii sheegayay horta curious waxa la dhaho curiosity af Soomaali maxaa lagu dhahaa hubin no waa kaa diiday curiosity maxaa af Soomaali lagu dhahaa no ها وحول curiosity magac waa inuu lahaadaa مليون مية ها because waxaa yaraanteydii waxaan jeclahay inaan iskuul aado laakiin fursad lama siin waxaa arki jiray walaaladii wiilasha aniga iga yaryar oo iskuul aaday anna waan jeclahay iskuul aado laakiin fursad ma helin markaas waxaan jeclahay inaan wax kasta iska fiiriyo oo iska akhristo wax ma akhrin karo waxna ma qori aqaan iskuul lama tagin dugsina ma leegeyn dagaalkii aan yar buu dhacay qaxoontiyo rafaada la isaga jiray marka waxaan jeclahay inaan wuxuun su'aalaha isweydiin jiray light bulb waxa la dhahaa su'aalo un bay dhex guuxi jiraan oo aan xitaa yar marka Minnesota marka imiday adi waxoogaa waa niyad jabay Soomaalideena si dadkeen u dhaqmayaan marka waxaan jeclaystay inaan bal anigii meel iska soo saaro iskuul aado ilmaha soo korsado maxay haydeen aan xanuunsanayna waa imiday madaxa laga qaraaco wiilkii qabay madaxa iga dilay sidii maska ma baantay ha dhimato isdhaafi buu islahaa laakiin teedi baan gelin marka sheekadan soo koobaya marka waxay go'aan ku gaaray inaan therapy aado counseling aado dhakhtarada la sheekaysto dhakhtaraduna waa cajaayib waxay ku dhahayaan depression ku haaye sida maarka waxoogaa u yeeran nafasti dawooyinka qaado waxaan dhahay dawooyin ma qaadanayo ilmo yar baan haystaa ma rabo inaan noqdo zambigan maxaa lagu dhaaf Soomaali ma aqaan ya reaxraad wax aag qof iska nool iska socda ma rabo inaan noqdo ilmo yar baan leeyahay waxaan rabtaa inaan noqdo alert waxaan rabaa inaan soo jeedo waxaan rabaa hooyo naf loo dhaqaaqaysa inaan haado inaanoo hurdaysana kiciyo anoo hurdaysana dawooyinka ku sinay hurda ku sinaysa depression ka magta marka dhibaatooyin igu soo badan oo aan la soo kulmay ayaa jeclaystay inaan dhakhtarka la xiriiro dhakhtarkina wuxuu dhahay laba option baad leedahay inaad depression medication qaadatid iyo inaad therapy aadid counseling therapy baan qaatay waxaan dhahay therapy han hadlo hal la dhageysto waa free hadal maanta dhan la sheekayso maxaa ku soo maray maxaa kugu dhacay iga waran say ku dhacday inaa su'aalo badan maanta dhan adoo nafisa soo baxay marka sheeka inay hayaay marka tiiba marka su'aalihii badnaa ay weydiinaysay ayaa waxay qortay inay tiraahdo journal qoro la sheekaysan nafsadaada marka sidii baan bilaabay inaan journal qoro journalkii nafsadayda la sheekaysto mabaad marka waa cidlooday waan cidlooday markaan cidlooday sababtoo aan u cidloodayna waxaan arkay inkastoon ku xumahay inaan communitygeena ka sheego balwad badan xaafad kastaba shiisha lagu cabayay xaafad kasta garaabaa lagu cabayay lagu cunayay waxbarashadii dumarkii ma xiisaynayaan waan saluugay taasna waxaan dhahay intan waad yar tahay opportunity wadan shisheeyaa timiday ilmo yar baad haysataa liilalow ma ku jiri kartid liilalow wax la dhaho ma ku jiri kartid ummadda Mareykanka janqaade la janqaad keligii baan ahay marka maxaa kugu dhacaya waa lagu la yaabayaa
marka waxaan noqday inaan keli noqdo ajnabigiina isku dhaqan ma nihin Soomaalideenina liloobaa isaga jira qofkii shaqaysanay shaqo aadaya markaan cidlooday baan waxaan jeclaystay inaan nafsadeyda la sheekaysto nafsadeyda la hadlo oo dhaho my dear soul maxaa ka caawiya maxaa ku daran maxaad u baahan tahay maanta aniga nafsadeyda waxaan rabaa inaan aado massage ama facial ama manicure ama pedicure ma caawa movie ad ma caawa casho ad ilmahaaga tigidh goosoo iska aadana meelo kale iska aada nafsadeedan la saaxiibay nafsadeeda ila talisay waxay tiri waxbarashada sii wad waxaa kaa dhex guuxaya qor marka journalkaas ay igu horeeyay journalka maanta mahayo sababtoo ah iga dhamaaday waan dalba iga soo gaari waayay my dear soul wuxuu leeyahay affirmation su'aalo dhiirigelin iyo space aad waxa doontid ku qortid ma baad kaas insha Allah marka dambe imaada inay keeni doona markii labaadna waxaan organization asaasay inta adeeg waxiga inta aad ka mid jirin anigoo school aadaya oo haddana laba ilmood korinaya oo part time shaqaynaya ayaan organization non profit organization asaasay sidaan gabdhaha dhalinyarta iyo hooyooyinka dhiban caawiyo wixii aan ka waayay community-geena dhexdeena inaan aniga aaso mabant inda adeeg waxaan qabo Soomaaliya ma xasuusto ilmahaygina waxaan jeclaystay inay af Soomaali iyo dhaqankooda bartaan library bayga soo horjeeday library-ga intaan aado ayaa mataqaanaa maxay heedeen Soomaali waxaan sameeyay cross cultural learning markaasaan dhahay ciyaalkii xaafadoo dhamma soo ururiyay waxaan dhahay Soomaaliya meesha ku taalo isteediyada kala tahay magacyada wadanada Afrika dhinacay kaga taalo aan baranaya ana isbariyay iyaga ma barin laakiin guskus baan ka dhigtay waxaan tagay Google waxaan aaday maxay haydeen MapQuest markaas adigu kulli waa isbaray to make a long story short hooyooyin badan oo dhiban baan arkay oo ku cakufaysa oo lilow ku jirta oo marna daycare ka cararaysa marna iskuul aadaysa marna jiifta marna telefoon ku hadlaysa marna garaabayr cabaysa ma jaadir cunaysa marka asil waxaan dhahay kaaleya waa la sheekaysan jiray badankoodu kula yaabayaan walaal waan weynahay hadda 30 ma gaarin walaal ilmo yar baan haystaa waxbarashada niyad muu hayo ilmaha korinayaayo waqti ma hayo laakiin waxay waqti u haysaa inay 8 hours telefoon ku jirto waxay waqti u haysaa inay aroos aado waxay waqti u haysaa inay naakala iska dhisto waxay waqti u haysaa inay jiifto marka waqtigeygii baan xisaabiyay waqtigeygii 24 hours maxay aan dheerahay jirtay 24 hours waa maya isku saacadaan nahay isku waqti baan nahay habeenii maalintii habeenkiina seexo maalintiina wax qabso 5 o'clock intaad toostid salaada u toostid oo tukatid 30 minute ama 1 hour ama 2 hours nafsadaada si buugaas inuu ku qorantaad ka akhrisan doontiin ma fahantay markaasaan gabdhaha walaalada aan dhahay buug baa u qoraya waxaan dhahay walaalaha Soomaaliyeed waan jeclahay walaalaha Soomaaliyeed waa ila dhasheen walaalaha Soomaaliyeed waa anoo kale maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin buug nafsadooda ay wax ka bartaan marka buugan waan ku farayareystay waxaan qoray 3 sanadood wax kastoon isdhahay u baahan tahay gabar Soomaaliyeedna waan ku qoray insha Allah intii soo akhrisatay soo laga weydiin wiilashana the same thing wiilal badan oo Soomaaliya oo dhiban oo maxay ahayd isku haynin maqanaha jooga ah way joogan jirkooga nala joogan laakiin maskaxdooda ma nala joogto nafsadoodana ma u roona waan la saaxiibay waan la sheekaystay waan la fadhiistay waan la intay waan la travel garay waan la fadhiistay waxaan ogaaday inay dumarkii ka daran yihiin sababtay uga daran yihiin waxa weeyaan
dumarkii way mashquulsan tahay waanu mashquulsanahay haddaan dumar nahay mar ilmahan ka daba cararayna mar gurigii mar shaqo mar daycare mar dugsi mar weel dhaq mar cunto kari mar kan samee qaylo qubqac waan daalanahay waan seexanaynaa waan dhacaynaa ma fahanti laakiin ninka Soomaaliga meel buu iska fadhiyaa waxaa galayaa cafe shop Zambi uu maqan yahay uu fadhiyaa laakiin uu maqan yahay ma fahanti ama yagiiba isku nacamleynaya raale ahaada waan jeclahay ma fahanti waxaan go'aan ku gaaray inaan buugaas qoro ani aabal aan baan koray aabahay ma arkin ma fahanti ciyaalkayguna aabal aan bay korayaan ciyaal badan oo Soomaaliya aabal aan korayna way jiraan ama aabahood ha ka maqnaado ama hooyadood ha kala tagaan ama jid ha saarnaado ama de kolba naag ha ka daba carro maalinba mid ha soo guursado ma fahanti marka dhibaatooyinka badan ee anigu la kulmay iyo 6 iyo 10 sanadood oo anigu organization aan aasay ka shaqeynayay iyo intii aan manay California joogay oo ka shaqeynayay number of organization waxaan ku gaaray inaan wiilasha buugaga u qoro aan dhaho sidan ha isku dhaano aan isku baahanahay hooyo kaligeed ma kornayso adduunka kaligeed ilmaha ma keenin marka waxaan jeclaystay inaan wiilashana la hadlo aan waaniyo waxna u sheego waxa aan isdahay way u baahan yihiin in kastoo aanu nin ahayn rag badan baan wareystay gooni u la fadhiistay ku yar ku weyn iyo ku meel dhaxaada intaba waan la fadhiistay waan la sheekaystay saasa igu kaliftay interview badan oo qaaday baa meesha ku jirta oo rag Soomaaliyeed aan ka soo qaaday markaas waxaas igu kalifay qaar badan oo kalena waan soo wadaa insha Allah